dhaqankeena Soomaaliga waxaa sal u ah marka la joogo dhanka reer guuraaga oo uu ka soo bilowday martisoorka, xoolo goynta, gaadiid celinta iyo wada dhaanshashada gaadiidka qaybihiisa kala duwan, ayna sii dheer tahay wada noolaanshaha guud iyo daris wanaag iska warhaynsalka ku haya. waana dhaqan soo jiray sanado iyo qarniyaal kala duwan, Soomaaliduna ay kaga naanaysan tahay marka loo eego dunida inteeda kale. gobonimada iyo mataqaanaa martisoorka Soomaalidu ay dunida dhan kaga horso waxa kamid ah halkaad wax fadhiya ardayga reerka saaka geeli baan tagnay oo soo lisnay oo tacaanihii iyo wax soo cabnay. hadda ardayga reerkaan nimi waxaan noo qalan orgi jeer hilibkiisa waa idinka arkaaye. halkan waa madbada sixin baa ka buuxa. halkan waa burxabaalkii caani halkan bay noo yaalay shaahid bigeeska ah. intaasi dhammaantood waa sooriyo ku maamusay oo nala siiyey kushrin ila naga waasiin. waa gobonimada iyo hodannimada Soomaalidu leedahay oo ay tahay inaan ku faano alxamdulillah rabbil caalamiin. marka alxamdulillah waxaan leenahay Soomaaliyay ku dhaado dhaqankaaga iyo dheeftaada iyo dhulkaaga iyo dhaqankaaga oo maasantiin. dadkeena Soomaaliduna waxay u qaybsan yihiin deegaan ahaan miyi iyo magaalo. dhaqankooduna waa uu kala duwan yahay marka qiimeyn iyo tixraac lagu sameeyo dhinacyada dhaqanka iyo habmaamuuska martida, balse waxay ka siman yihiin jacaylka martida iyo socotada oo la sooriyeeyo. waxaana runtii noo muuqda wax ka turjumaya in dhaqanka Soomaalidu uusan marna ka dabargoyn geeyigana uu yahay geey runtii ku suntan mar walbana ku suntanaan jiray in dadka Soomaalidu ay saldhig u tahay dhaqan. waana sida ku qeexan digaalka ama taariikhda bini'aadamku ummad waliba dhaqankeeda ayaa wuxuu ka turjumaa waxay damacsan tahay halkay higsanayso. marka dhaqankaas runtii waxaan u aragnaa inuu yahay dhaqan lagu hiran karo oo runtii laga maarmi karo waqti badan oo ku bixi jiray in dadku magaalooyinka ay joogaan. mar aan tagnay dooxooyinka Nuwaasha ee u dhaxeeya degmooyinka Garowe iyo Taleex xilliga lagu jirayna yahay xilli barwaaqo ah, indhahaguna qabanayaan oo kaliya meesiyada kala duwan ee xoolaha ay Soomaalidu dhaqato oo wada jir u daaqaya barwaaqada Rabbi ku manaysay dooxooyinka Nuwaaleed. geelu waxa ugu badnaadee ahna mid ay Soomaalidu ku faanaan dhaqashadiisa. xilli aroornimo hore ah anigii kooxdii la socotay oo u badnayd wasaaradda warfaafinta ee Puntland waxaan ku soo beeganay qoys reer guuraa ah oo xilligaasi maaliyay geelooda xilliga subaxnimada. isu salaamid kadibna wayna joojiyeen iyagoo sidii caadadu ahayd reer miyiga nagu sooray caano geel oo waqtigaasi la soo lisay ahaana awoodooda koowaad ee waqtigaasi ay hayaan. saacado socda kadib indhahaguna qabanayaan oo kaliya barwaaqada iyo quruxda Rabbi ku manaysay dhulka. haddana waxaan la soo kulannay qoys reer guuraa ah oo degan meel aan sidaasiba uga sii fogeyn wadadii aan haynay, kaasi oo sidii caadadu ahaydba reer miyiga mar kale nagu martigeliyey noocyada kala duwan ee caanaha xoolaha. ilaahay maad waxaan ku soo beeganay iyadoo xilli barwaaqo lagu jiro meel kasta oo marayna dadka reer guuraaga ah ee dhaqanka wanaagsan leh leeyin soo fariista kaalaya caana cabba. aad baan ugu mahadcelinaynaa. hadda waxaan joognaa deegaanka Dhumayar. waa banka quruxda badan ee barwaaqada ah, gaar ahaan aqalkan quruxda badan ee aqal Soomaaliya oo ku jirnaa caanaana ku dhaxabeynaa. maasha Allah alxamdulillah aad baan ugu mahadcelinaynaa reerka nagu soo dhaweeyay. waxaan hadda joognaa banaankii dooxada Dhumayar. waxaa halkaas lagu soo dhaweeyay reer baan nagu soo dhaweeyay caanihii iyo gurigii iyo martisoorkii inaba aan caadi ahayn. hadda dhiisha arkaysaan haddii caanaha ka buuxa waa saan u cabbo bal arkaydanku. waxaa lagu jiraa saban barwaaqaad. reerka waxaa leenahay Allah barakeeyo isaga iyo xoolihiisa iyo awlaadiisa iyo dadkiisaba. xilli barwaaqaad lagu jiraa. waxaa ilaahay mahadiisa in mataqaanaa Soomaalidu dhaqankeedu uu yahay mid soo dhaweyn iyo gobonimo iyo sooriyo iyo sharaf. marka halkaan qaybta la socotay baa fadhida. arda ka warramad ka hadal.
عليه waxaan joognaa maanta aqalkii ama gurigii dhabta ahaa ee Soomaalidu u lahayd dhaqanka iyo astaanta oo ay iyagu ku samaysan jireen gacantooda waxaan aad arkaysaan waxa samaysay warshad maysan samayn waxa samaysay waa hooyo Soomaaliyeed baa samaysay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan aynu ku faano dhaqankeena waa sii dabar go'aya aynu dhaqankeena muujino aynu dhaqankeena maaragtay ku dadaalno يعني waxyaalaha ila cajiibka badna waxa kamid ahaa dooxadaas markaan soo mareynay 60 meesi ee xooluhu ka kooban yihiinba waa daaqay fardo 5 meesi fardo ari geel lo inta waa daawanayna oo ay daaqayeen barwaaqa dhacday aanihii waan cabaynaa oo karuur iyo dhanaan iyo waxa weeye dhay iyo nooc walba leh oo geel iyo ari iyo lo intaba laga helay ma sha Allah nimca dhacday barwaaqa dhacday ilaahay ma hada iskale deegaanka Dhumayar oo runtii adoo xab barwaaqa oo xilligan gugi iyo dayrtiba isku raacay saaka waxaan waa markii afraad aan geel cabayna fresh iyo caaniyo noocyo kala duwan leh oo wax ilaahay loogu xamdino ma sha Allah gelinkii dambe ee xilligan aynu ku jirno casar leeqa waxaanu joognaa deegaan lagu magacaabo Dhumayar oo ay qoys reer guuraa ah nagu joojiyeen halkaasi si ay martisoor noogu sameeyaan barnaamijkeena waad sii daawan doontaan soo laabashadayadii gelinkii dambe ee safarkayagana mar kale daawaday waxaan noo qalan neef ari ah oo ay nagu sooreen qoys ka mid ah reer guuraaga degan dooxada Dhumayar oo ka mid ah dooxooyinka dhulka nugaasha waana mid ku tusaysa heerka xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ee ka joogan sooriyinta martida iyo socotada wallahi Yuusufow horta jawiga aynu caawa ku sugannahay ama maanta aynu ku sugannahay waxaan oran karaa waa jawigii ugu macaanaa intii aan safar galayay ama aan dalxiis u baxayay sababta oo ah dhulku waa barwaaqo sida aad aragtaan geel iyo ari iyo lo intuba waa ay dhaleen ma sha Allah ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa abaari ma jirto reer kasta bartii u deganaa ayaa roob ku helay oo uu ku barwaaqaystay waxyaabaha cajiibka ah waxa kamid ah dadka reer miyiga ah iyo dadka reer magaalka ah waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn oo ah xagga sooriyada dadka reer miyiga ihi waxa ay leeyihiin sooriyo ay dadka ku soo dhaweeyaan oo ah dhaqankii lagu yaqaanay ummadda Soomaaliyeed qof reer miyi ah hadaad la soo kulantid habeenkaas dhaafi maysid waxa tusaale kuugu filan qoyskan aynu caawa la joogno waa gabaldhac waana ku soo beeganna waxa ay diideen inaynu dhaafno neef bay noo qaleen caanihii wixii oo dhan bay noo diyaariyeen waxa ay nagu khasbeen inaan caawa halka iyaga la joogno neefka ay noo qaleen hadii ilaahay noo calfo aan cunno de ma sha Allah waxa hubaala in reer guuraaga ama xoolo dhaqatada Soomaaliyeed hadba sida aad u taqaan ay uga hab maamuus wanaagsan yihiin reer magaalka martigelinta ama martisoorka socotada waana mid si weyn ku soo jiidanaysa marka aad u baxdo dhulka baadiyaha ay ku badan yihiin reer guuraaga Soomaaliyeed Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe